dhacdooyin badan ka dhaca xeebta liido markii hoteelada lagu daaho dadka isku harayo waa dhalinyaro gabdho yar yar oo guriga laga soo qalday iyo nimankii keenay wax dana kama leh inuu maanka ka qaado ka bacdina isticmaalo waxaan dan kale kama leh lacag kasta ku dhiiba bajaajleeduna waa ka qayb qaadanaysaa gabadha tirada qaad gurigeeda geey baangada u saaran markuu qaado laba jir aad gooyina nin kale waxa koox kale waxa meesha gabadha lagu isticmaalaa gabadhaas dhibano waa meel uu dacwooto male hooyada aabada ka soo dhuumatay saldhiga booliska dibta ma la soo qabtan xilada wax dacwo ma qabo ayadoo la xooga arkaysa laakiin sharciga dhibano noqonaya waa la haynaa kiisas badan aan qaadnay oo qaar maxkamadda u gudbinay kolba daa dacwoon karin wixii in dambi yihiin meesha ka cad hadda dhib ku dhaca dacwo karin ina guriga iska joogtaa fiican dumarta gabdhaha la soo wada waxa leeyahay waliba dhalinyarada hadda aan ugu badan diaspora dibadda ka timid ama waxaan fududeys dhalinyarada hore ay joogay xishoodkooda badnaa hadda gabadha marka la hadlo xalay baruud ma leedahay marka la isbarto baruud ma leedahay haddii saleen wala bara shishada abaa leeyahay ana ka hadiibina qofka haddii beerta la geliyo ma gadan karto ka bacdi waxa waa inay ayada jirkeeda isticmaasho oo ayada la isticmaalo waxa ka imaanaya in gabdhiga ayadoo wada xaamila ay dhoobiyiin xeebta liido annaga aan ka aruurinay qaar aan u dhiibnay maama jawaahir oo khayr allah si nagala qayb qaadatay dhowr gabdhood aan u dhiibay oo mid kasta ku leedahay waa xaamila ahay meelaan ku dhalana male waxay rabtaa xeebteena ku dhasho kabacdi cunuga badda lagu tuuro dambiyadaasa ka dhalanaya marka bilaaw ilaa dhammaad waa dembi haddaad tira meeshaas ka dhaafna waxay ku leedahay ani jooskayga faragashan haddii dambe ku dhacana saldhigii usoo ordaysaa marka waxyaala la yaab kale ka mid tahay haddaad tiraad gurigaaga joog ilaahay ka baq waxay ku leedahay nin oo adiga man caburinaysaa dadkii ilbaxnimo waxay u moodeen in baashaas la cabo xeebta liidan la yimaado ilbaxnimo ay u moodeen ma aha waxaan rabaa waalidiintu waxaan aaminsan in qayb ka mid yihiin arrintaas dhacaysa inay gacan ka geysanayaan sababtoo gabadhaan 6 saac xeebta liidan fadhisa hooyada aabadoo joogaan ma ogaan karaan ana ma aaminsan qaar intaa qabanaa hooyinkooda la hadal waxay yidhahdaan anaa ku og isiidaa gabadheeda waalidiintaas isdhahay marka anna waxaan suubinaa 7 saac waxaan qabanno waa haynaa lama sii deyn karo waa gabar haddaad sii deysin mootoolahaasi dhibaato u geysanayo tuugadii aad sidii ka taagan waa haynaa subaxdiina waxaan isku daynaa inaan waalidkeeda u wacno digniin siino mar dambe inaan meesha imaan karin dadkii imaan kale waa baqayaan qaar waxay ku leeyihin gabdhuhu hooyada wicin mar dambe usoo laamaa taliyow hoteeladii liido 6 saac ka dambe waa la xiray waa sax in muusig gabdhii loo daaro shiishadii la siiyo weliba aniga shiishadaha waa dhowr nooc gabadha markii la keeno lambarkee lagu siyaale lambarkee ninkaa la leeyahay lambar waxaa jira xashiis lagu daraayo oo qofkan hawada ka saaraayo gabadhan cidda ugu soo sheekaysa jaamacadda gabar kale wax ka soo baranaa waxay fadhisaa Banaadir Beach ama African Beach oo tirada ugu caansan laga yaqaan ka bacda ay cid been u sheegtay dib ku dhaca mana sheegayso waa caqabad kale على جال أورا دي قاعدين عرفتو أي حيابها يمارس أدو إنه كل شيء سكوت يده عندنا حكر جواد السؤال بلاد معركة وحكرنا علمي أنت لسوق على بدل وقولي قال لك بوليس كي سلك عبد العزيز وحان كنت أبرنا هذه قف حاملة عرفتين إنه ورستان هذه من كذا لسوق على ذكرية هاي سواها كانت سؤالها سوي دينا ويكون شيء زعلاني إنه كان عظم ماله ما يشتغل أنا أسكت جوا وحن لحرينا برضه تندرك أما ما مخبرك بنادر وما مجواهر وكعس ونوت ماذا وكوري جنا قار إذا هذا إنسان أو جيبي أو حلت اللي ذاك قبض قارو حنكو حرينا ماشي كدرك وقبضه
marka cunug yar oo badda lagu dilaayana oo muwaadin Soomaaliyeed ma fiirsan kartid dambiga ka dhalanaya aakhira adduunba wixiina aroorsid haday gabar tahay haday ilma saqiira yihiin haddii nin cabsan yahay waxay soo galaan 8 saac ka dambe waxa soo galaysa askartii oo kala nooc cabsan iyo kuwii awalba gabdhaha meesha keenay nin cabsan oo qorwata maxaa u sheegaysaa adoo gabar wata xagaas ka baxo ku leeyahay salligii ma imaan kartid oo 6 saacadood waa xiran tahay maxaa iyada dacwoonay dadka madada lagu xiro isla inay marka dhibaatooyin badan ka dhashay shiishada lagu daray xashiishada iyo taambuuga horumarka loo moodo waxaan aaminsanahay macallimiinta iyo haddii xalka ugu dambeeya waxaa waaye macallimiinta jaamacadaha iyo iskoolaadka iyo waalidiinta inay ka qayb qaataan la dagaalanka muqaadaraadka waa si ugu fudud gabar kasta haddii guriga lagu celiyo culaysku ka yaraanaya buriiska iyo hoteelaha la imaanaya laakiin cishiyaa la soo labisaa or badda adaa leeyahay gabadheeda xor waay hadhow tidimada ku dhacana saldhigii soo dhoobanaya xillinina gabadhiisa isku soo biyo marka xalku waxuu ku jiraa in waalidku oo ilmihiisa aruursadaa qofkaana waalid lahaynna sidii marka hore noo imaanaya iyagoo uur loo dhibaato ku dhacda inay yimaadaan si aan ugu wareejino hayadaha ku shaqada leh haddii se waalid haysan gabar tahay inay timaado saldhigyada booliisku nooc kastuu yahay ay u sheegto ama degmooyinka si loogu xiriiriyo meelaha ugu dhow ay ka heli karto waxay cunto iyo in la xanaaneeyo laakiin dhibka markuu dhacay ku imaanay ay dhaafayso hadda waa la dirirnay habeenadan 6 saac ka dambeeya waa xirantahay liido sidii maamul gobolka banaadir uu amar ku bixiyey annagana waa fulinaynaa in hotel furnaakar uusan jirin qof kastana gurigiisa aado inkastoo waqtigaas nagu dheer yahay laakiin amarka dowladda waa la fulinaa insha allah waxaan rajaynaa in dhalinyarada meesha fadhisa iyo kuwana daawan doona in arrintaas lagu baraarujiyo gabdhaha mustaqbalka laga baabiinayo weliba hadda waxaaba loogu sii darbaladu ma leedaha waaba la bara haddii sareer haddii leedahana kasii fiican tahay wax mustaqbalaa ma rabo ninkaas hooyooyinka inay gabdhaha celiyaan dhalinyarada wiilasha inay gabdhaha celiyaan walaalahood si annaga culays noogu yaraado aada umahadsantihiin